السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka la eego cuntooyinka aynu cunno habeen iyo maalinba waxa xaqiiq ah in caloosheenna iyo jirkeennuba u baahan yihiin qaras bixin ama dacar bixin ugu yaraan sanadkii mar ama laba jeer. laakiin waxa dhacda in dadka qaarkood ay sameeyaan qaras bixinta iyagoo maraya waddo aan sax ahayn. waxay dadka qaarkood sameeyaan intay cunitaan ama cabitaan badan isticmaalaan ayay ka dabageeyaan shaygii ay rabeen inay qaras bixinta ku sameeyaan. taasi waxay keenaysaa in shaygaasi caloosha uu ka soo saaro wixii markaa ku jiray laakiin caloosha iyo jirka toona uma soo maydhaya si sax ah. haddaba si aad qaras bixinta saxda ah isugu samayso waxaad raacdaa tallaabooyinkan. subaxdii markaad hurdada ka toosto adigoon afkaaga waxba gelin waxaad soo diyaarsataa caano geel haddii aad helayso. caano geel markaad soo diyaarsato waxaad isku daydaa inaad lugayso oo aad jimicsi luga soo samayso ugu yaraan 25 daqiiqo. 25 daqiiqo markaad soo lugayso ee aad gurigaaga ku soo noqoto waxaad samaysaa caanihii geela dabka saar. iyadoo caanaha geelu sidoodaba dad badan ay caloosha socodsiiyaan ayaa haddana qaabkani uu ka duwan yahay qaababka kale oo dhan. marka aad caanaha geela soo qaadato ee aad dabka saarto adigoo 25 daqiiqo soo lugeeyay isla markaana aan wax cunta iyo wax cabitaan toona isticmaalin, caanaha geelu markay diirribaan noqdaan ee aad diirisay dabka saarto iyagoo aan aadna u kululaanin iyadoo calooshaadu badan tahay intaad ka cabi karta kacab. kadibna waxaad sugtaa muddo hal saac kadib waxaad eegtaa waxa dhaca iyo si ay jirkaaga iyo calooshaadaba u soo maydhaan. waxaa dhici karta inaad samayso jimicsi iyadoo jimicsigu jirka aadamaha u leeyahay caafimaad ayaa haddana waxa dadka qaarkood ay sameeyaan khaladaad dhinaca cuntada ah jimicsiga kadib kaasoo halis caafimaad keeni kara. si aanay taasi u dhicin ayaa waxa lagula taliyaa dadka jimicsiga sameeya markay jimicsiga dhameeyaan muddo 30 daqiiqo kadib inay cunaan cuntooyinkan soo socda. 1. beedka oo laga helo fiitamiino iyo borotiino badan oo jirku u baahan yahay ayaa lagula taliyaa qofka jimicsiga sameeya muddo 30 daqiiqo kadib inuu cuno xaddi kooban oo beed ah. 2. hilibka digaaga oo qofku cuno jimicsiga kadib waxa laga helaa faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. 3. kalluunka oo aynu ognahay faa'iidooyinka caafimaad ee uu jirka u leeyahay ayaa qofka jimicsiga ka soo baxa waxa lagula taliyaa 30 daqiiqo kadib inuu cuno waxoogaa kalluun ah. 4. boorashka oo qofku jimicsiga kadib cunaa waxay saacidaa oo ay kaabtaa faa'iidooyinkii caafimaad ee qofku uu ka helay jimicsiga. taa beddelkeeda waxa qofka looga digaa jimicsiga kadib inuu isla markiiba cuno cuntooyinka borotiinka badan iyo cuntooyinka dufankoodu xad dhaafka yahay sida hilibka iyo caanaha iyadoo lagula taliyo qofkii isticmaalaya ama qofkii u baahan inuu isticmaalo hilibka iyo caanaha inuu cuno muddo 2 saacadood ama 3 saacadood kadib xilliga jimicsiga, laakiin isla markaaba aanu ku bilaabin markuu jimicsiga ka soo baxo cuntooyinka hilibka iyo caanaha iyo kuwa la midka ah ee dufanka iyo borotiinka faraha badani uu ku jiro. marka uu qofku jimicsiga dhameeyo waxa uu isticmaalayaa 30 daqiiqo kadib inuu cabo biyo badan iyo inuu cuno cuntooyinka aynu kor ku soo sheegnay. basbaas qajiga ama basbaaska cagaaran sidaad u taqaano inkastoo dadka qaba xanuunka gaasteriga iyo dadka xoqadaha ama qanjuhu ay xanuunayaan lagula taliyo inay aad u yareystaan isticmaalkiisa, haddana basbaaska noocani wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan waxaana aad ugu badan faytamiin C iyo faytamiin E. isticmaalka basbaaska noocanina wuxuu ka hortagaa noocyo ka mid ah kansarka oo ku dhaca ragga waxaanu u fiican yahay dadka qaba caburka isagoo fura sanka iyo neef mareenka. waxaanu jirka ka caawiyaa inuu soo daayo saliid aad u dhalaalisa maqaarka sare ee jirka waxaanu isku dheelitiraa sonkorta jirka ku jirta iyadoo lagula taliyo inay isticmaalaan dadka qaba xanuunka sonkorowgu. waxaanu u fiican yahay dheefshiidka waxaanu dawo aad u fiican u yahay xanuunka dhanjafka. waxaa jirtay qaab dabiici ah oo dadka Jarmalku waqti hore ay u isticmaali jireen inay ku furaan xididada dhiigga ee wadnaha taga haddii ay xidhmaan ama ay cidhiidhi galaan. waxa kale oo sheegeen qaabkan inay u adeegsan jireen inay hoos ugu dhigaan kolestaroolku xilliga uu kacsan yahay iyo inay kula dagaalamaan igfashanka jirka ku jira. waxa kale oo sheegeen qaabkani inuu u ahaa qaab ay iskaga ilaaliyaan xanuunada halista ah ee wadnaha ku dhici kara. waxa kale oo sheegeen dawada dabiiciga ah ee noocani inay kor u qaado difaaca jirka iyo habsami u shaqaynta wareegga dhiigga. waxaanay u diyaarin jireen dawadaas dabiiciga qaabkan 2 litir oo biyo nadiif ah iyo 4 jeex oo liin dhanaana oo diirkoodii wata iyo 4 madax oo yaryar oo ka mid ah toonta. intaa kadibna waxay samayn jireen 4 jeex oo liin dhanaanta iyo 4 madax yaryar ee toonta inay dhammaantood jarjaraan kadibna isku daraan kadibna ay ku sii daraan 2 litir ee biyaha ahaa kadibna ay dabka saaraan. markay dabka saaraan ee ilaa 5 daqiiqo ay isla karsamaan kadibna ay ka qaadaan dabka. intaa kadibna ay sii miiraan kadibna biyihii ay ku shubaan weel macdana oo ay talaajada geliyaan si ay u qaboobaan. markay qaabka u diyaariyaanna 1 koob
waxay cabbi jireen cuntada ka hor 2 saac waxaanay sheegeen in uu ahaa qaab ay ku najaxeen inagoo ka wada dharagsan waxtarka liin dhanaantu ay leedahay haddana inteena badani liin dhanaanta waxaynu isticmaalaa qaab kaliya qaabkaas oo ah inaynu biyaha ku jira liin dhanaanta ka toojino kadibna iska tuurno diirka sare ee liin dhanaanta laakiin waxaynaan ogeyn in diirka sare ee liin dhanaantu in badan uu ka waxtar badan yahay biyaha laga toojiyo liin dhanaanta cilmi baadhis arrintan lagu sameeyayna waxa lagu sheegay in faytamiinada kala ah faytamiin C iyo faytamiin B6 inay 10 jeer laab ka badan yihiin kana waxtar badan yihiin kuwa ku jira biyaha laga toojiyo liin dhanaanta sidoo kalena maadooyinka calciumka magnesiumka iyo potassiumka ee ku jira diirka liin dhanaantu inay in badan ka waxtar badan yihiin kuwa ku jira sharaabka ama biyaha laga toojiyo liin dhanaanta waxaana diirka liin dhanaanta ku jirta oo ku badan maadada bactin oo muhiim u ah jidhka dawana u ah xanuunka sonkorowga ama macaanka waxa kaloo diirka liin dhanaanta ku jirta maadada bioflavonoids waana maadada jidhka ka saarta sunta kana hortagta xanuunka kansarka faa'iidooyinka caafimaad ee diirka liin dhanaantu jidhka u leedahayna waxa ka mid ah waxay u fiican tahay caafimaad qabka lafaha hoosna waxay u dhigtaa khatarta kolestaroolka halista sidoo kalena waxay yaraysaa xanuunada ku dhaca wadnaha waxaanay habaysaa xaddiga sonkorta ee jidhka ku jirta waxay sidoo kale wanaajisaa caafimaad qabka ilkaha iyo ciridka sidoo kalena waxay jidhka ka ilaalisaa burooyinka kansarka ee jidhka ka soo baxa qaabka aynu isticmaalaynaana waa inaynu diirka liin dhanaanta jarjarno kadibna tunno ama daqiijino kadibna aynu ku shubno weel nadiif ah kadibna aynu gelino talaagada intaa kadibna diirkii liin dhanaanta oo aynu daqiijinay waxaynu ku darsanaynaa cabitaanada sida shaaha sharaabka iyo xataa cuntooyinkaba haddaad aragto xayawaanka noocana ha isku dayin inaad u dhawaato kana fogow xayawaanka noocana inkastoo markii ugu horreysay lagu arkay waqooyiga Ameerika haddana waqti dambe waxa lagu arkay meelo badan oo adduunka magaca ay dhakhaatiirtu u yaqaanaana waa Mycolobeck obercularis waxaanay khubarada dhinaca xayawaanku sheegeen in xayawaankan yari markuu qaniino qofka in qofku uu dareemo xanuun aad u daran muddo kadibna sunta xayawaankani ay dhibaato u geysan karta lafaha iyo maqaarka xasaasiyadna ay ku reebi karta jidhka waxaanu xayawaankan yari dhex galaa oo isku qariya caleenta balbalaaran isagoo mararka qaarkoodna midabkiisu isbedbedeli karo iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo badanayaan digniinaha laga bixinayo isticmaalka badan ee sonkorta isla markaana xeeldheerayaasha caafimaadku ay sheegayaan in isticmaalka badan ee sonkortu ay khatar ku tahay caafimaadka qofka bini'aadanka ayaa haddana waxa adkaatay in qaabka ay dhakhaatiirtu ku talinayaan la isaga ilaaliyo sonkorta maadaama sonkortu ay ku jirto inta badan cunitaanada iyo cabitaanada aynu sida joogtada u isticmaalno haddaba daraasado dhinaca caafimaadka ah oo dhowaan la sameeyay waxay sheegeen in muddo bil ah oo qofku gabi ahaanba iska daaya sonkorta isla markaana faraha ka qaado dhammaan cabitaanada iyo cunitaanada sonkortu ay ku jirto in qofku muddada bisha ah ee sonkortu ay jidhkiisa ka maqan tahay uu ka helayo 7 arrimood oo u fiican caafimaadka jidhkiisa kuwaas oo kala ah miisaanka saayidka ah ee jidhka oo xaddi badan hoos u dhaca muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka iyo arrinta labaad oo ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay qofka jidhkiisa in gabi ahaanba jidhka noocyadiisa kala duwani ay si habsami ah u shaqeeyaan isla markaana jidhku uu jaanis u helayo inuu gubo oo burburiyo sonkortii hore ee ku jirtay jidhka ee jidhku aanu u baahnayn waxa kaloo arrinta saddexaad ah oo khabarada caafimaadku ay sheegeen in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu qofku helayo hurdo raaxo leh waxa iyana arrinta afraad ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu wanaagsanaanayo diirka sare ama maqaarka sare ee jidhka isla markaana uu soo baxayo quruxda iyo dhalaalka diirka sare ee qofku iyo arrinta shanaad oo ah in muddada bisha ah ee gabi ahaanba sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka uu jidhku helayo difaac uu iskaga difaaco xanuunka macaanka ama sonkorowga gaar ahaan nooca labaad waxa kaloo iyana arrinta lixaad ah in muddada bisha ah ee sonkortu ay ka maqan tahay jidhka qofka 35% qofku uu ka badbaadayo xanuunada ku dhaca wadnaha iyo arrinta toddobaad oo ah inuu yaraanayo ama ilaa xad hoos u dhacayo suuska gala ilkaha iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ay dhowaan sheegtay in isticmaalka badan ee sonkortu uu waxyeello weyn u geystay ilkaha
cuntooyin iyo cabitaan aanay habboonayn inaad isticmaasho xilliga aad isu diyaarinayso hurdada. Shaaha, gaar ahaan bunku, iyadoo bunku uu kordhiyo xaddiga garaaca wadnaha isla markaana shaahu uu jidhka siiyo firfircooni dheeraada, ayaanay habboonayn inaad isticmaasho xilliga aad isu diyaarinayso hurdada. Hilibka cas, iyadoo aynu ognahay in hilibka casi uu leeyahay dufan iyo borotiin fara badan, ayaanay fiicnayn inaad isticmaasho xilliga hurdada maadaama jidhkaagu iyo dheefshiidkaagu aanu helahayn waqti ku filan oo uu ku burburiyo kagana shaqaysiiyo dheefshiidka si uu jidhka ula falgeliyo borotiinka iyo subaga faraha badan ee uu leeyahay hilibka casi. Boorashka, iyadoo boorashka lagula taliyo dadku inay subaxdii isticmaalaan xilliga quraacda, faa'iidooyin fara badanna laga helo isla markaana ay boorashka ka buuxaan maadooyin la dagaalama subaga, ayaa haddana waxaa laga digay qofku inuu isticmaalo boorashka xilliga uu hurdada isu diyaarinayo, isagoo ku keeni kara qofka dibiro fara badan. Cabitaanka biyo badan ee xilliga uu qofku aadayo sariirta, iyadoo biyuhu muhiimad weyn ay u leeyihiin jidhkeenna, ayaanay haddana fiicnayn qofku inuu biyo badan isticmaalo xilliga uu isu diyaarinayo hurdada. Biyaha badan ee uu qofku cabo xilliga hurdada waxay ku keeni karaan inay kaliyaha qofku isku dayaan inay si xawliya u shaqeeyaan isagoo qofka hurda. Sidaas oo kalena biyuhu waxay sababi karaan inuu qofku saacado badan kasoo tooso hurdada oo ku noqnoqdo xamaamka, taasoo meesha ka saari karta raaxadii hurdada. Shimbirta gorayadu waa shimbirta ugu xajmiga weyn shimbiraha baalayda, waana shimbir leh manaafacaad badan. Shimbirtan gorayadu waxay leedahay saliid laga sameeyo subaga gorayada, taasoo lagu iibiyo suuqyada sida idinka muuqata bogoska yar ee ay ku jirto saliidda gorayadu, waana saliid waxtarkeedu aad u badan yahay oo la marsado jidhka. Saliidan waxaa la isku raacay inay tahay saliidda ugu wanaagsan ee dejisa xanuunkana ka biisa neerfayaasha jidhka, waana saliid jidhka degdeg uga biisa qalalka maqaarka, aadna u jilcisa maqaarka sare ee jidhka, timahana ka ilaalisa daadashada. Waana saliid meesha ka saarta xanuunka qofka uu ka dareemo lafaha iyo muruqyada, aadna waxay dawo uga tahay xanuunka rheumatismka. Ilaahayna hayna caawiyo dhammaanteen.